gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan mudane siciid mira faarax uu weheliyo xildhibaan cumar jaamac faarax iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey degmada garadag soo dhoweynta wafdigan oo ka qayb qaadanayeen maamulka degmadaasi garadag maariye ku-xigeenka wakaalada horumarinta wadooyinka luqaasha waayeelka waxgaradka iyo haldoorka degmadaasi garadag iyo shacab weynaha ku dhaqan degmadaasi garadag oo aan u kala hadhin soo dhoweynta wafdigan uu hogaaminayo gudoomiyuhu dhammaanba mas-uuliyiintii soo dhoweynaya wafdiganu oo hadallo kooban ka soo jeediyey madashii soo dhoweynta iyo hadalladooda waxaa ka mid ahaa sida tan. waxaan halkan runtii uga mahad celinayaa bulshaweynta reer garadag ee soo dhoweeyey guddoomiyahoodii iyo xildhibaankoodii oo halkan maanta inagoo sugan una socda furitaankii ibafurka jaamacadda ibraahim barre University runtii waa wafdidii ugu horreysay ee na soo gaadha ee ku socota inay nagala qayb gasho furitaanka jaamacadda iyo xoggaalu noqoshada arrimaha degmada waxaan runtii halkan uga mahad celinayaa soona dhoweynayaa anigoo ku hadlaya afka shacabka degmada garadag afka golaha deegaanka ee degmada garadag afka dadweynaha ee degmada garadag afka waayeelka ee degmada garadag waxaanu si mugle iyo miisaan leh u soo dhoweynaynaa oo kal iyo laaba gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada siciid mira faarax iyo xildhibaan cumar jaamac faarax dhammaantiin waxaan ku leenahay degmada garadag ku soo dhowaada dadweynaha reer garadag gudoomiyuhuna weyna la joogaa labadiisa kelmadood mahadnaqa markuu yidhaahdana waxaan u dhaafayaa hadalla waa hadhow hadalla waa hadeer wixii hadali waa inoo dambeeyaan waxaan leeyahay gudoomiye ku-xigeen ku soo dhowow gobkii iyo garadag iyo gurigaagii hooyo ku soo dhowow ku soo dhowow ku soo dhowow ku soo dhowow qalabta ii tahay aniga iyo shacabka reer garadag inaannu soo dhoweyno gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan iyo xildhibaan cumar jaamac faarax waxaannu leenahay mudanayaal soo dhowaada soo dhowaada soo dhowaada runtii annagu haddaannu nahay hay'adda horumarinta waddooyinka waxaannu nahay garadag baannu ka soo jeednaa oo kararshakii ugu weynaana noo yaallo inta badan mas-uuliyiintu markay u soo kacdaan sanaag anigu waxaan ku matelaa inaan ahay kuwa soo dhoweynaya ee halkan jooga ee ka mida reer garadag baan anugu ku matelaa sidoo kale isaguna halkaa waxaa ka hadlay xildhibaan cumar jaamac faarax oo ka warbixiyey ujeedka safarkoodan islamarkaana dadweynaha ku dhaqan degmadaasi garadag uga mahad celiyey soo dhoweynta ballaadhan ay u sameeyeen qalbi iyo niyadsame baan idin salaamayaa dadkayagii baa tihiin waad garan karaysaan iskuul jaamacadda waxaa la furayaa 10ka bisha aniyo guddoomiyuhuba hordhac baannu ahayn magaalada waxaa ku soo wajahan wufuud fara badan dawladdii oo dhan baa imanaysa jaamacadihii kalaa imanaya gobolladaa laga imanayaa marka hordhac waxaannu u nahay inaannu idinla sii ogaanno warbalqaabkaaynu dadkaa u soo dhowaynayno sidaynu u martigelinayno sidaynu u dejinayno sidaynu u soorayno ayaannu isnidhi bal sii hormara aniga iyo guddoomiyuhiioo dee deegaanka ka soo jeeda guntii iyo gabagabadiina gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan mudane siciid mira faarax ayaa dadweynaha ku dhaqan degmadaasi garadag uga mahad celiyey soo dhoweynta ballaadhan ay u sameeyeen islamarkaana sheegay ujeedka safarkoodan salaan kadib sharaf way ii tahay inaad si wanaagsan oo qiimo badan noogu soo dhoweyseen gurigaygii iyo magaaladaydii aan ku dhashay degmada garadag aad iyo aad baa runtii sharaf iyo karaamo noogu tahay ugu horrayn waa idiin mahadnaqaynaa sida kalgacalka leh ehelnimada leh muwaadinnimada leh rabitaanka leh ha noo soo dhoweyseen aad iyo aad baan idku mahadnaqaynaa annagu wafdi ahaan waxaannu u soconnay inaannu ibafur ama hordhac u nahay sidaad la socotaan furitaanka jaamacadda ibraahim barre University oo 10ka bisha laga furayo degmada garadag qabanqaabo badan baannu ka soo gallay hawl badan ilaahay ha u raxmado ibraahim xaaji barre nuur aasaasi jaamacadda waynu ducaynaynaa iyo dhammaan cid kastoo qayb ka qaadatay ugu horreeya qoyska reer barre nuur waxaan markaa u nimi inaynu maadaama marti badan ay ku soo wajahan tahay degmada garadag oo ah degmo la jecel yahay degmo taariikh ku leh qarankan halgankii nabaddii siyaasadda horumarka mid walba taariikh tugan ku leh ummad badan baa imanaysa hadday tahay xukuumaddii hadday tahay baarlamaankii hadday tahay salaadiintii hadday tahay madaxdii jaamacadaha hadday tahay baamushtarkii bulsho tiro badan baa soo socota
marka aniga iyo xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo marra chief caaqilka deegaanka marra odayada golaha marra nin wax badan deegaankan iyo dalkan ka qabtay waxay nolol noqotay inaanu isqaybino xildhibaanadayadii oo qaarna ay hordhac noqdaan oo aan xogaal u noqono sida loo soo dhaweynayo martida sida loo dajinayo sida loo maamuusayo sida loo amnigooda loo ilaalinayo qaarkoodna ay soo kaxayaan martida sidaasaanu xildhibaanadii kale soo qaybinay xildhibaanadii kale iyo fiidina bereben ugu soo bilaabi doona haddii lahay ka dhigo waxaan idinka rajaynayaa sidii gobonimada lahayd ee laynagu yaqaanay ee dhaqankeennu ahaa soo dhoweyn martigelin nidaam ayaa laynaga rabaa insha allah bismillaahi kariim sooriya wanaag dhaqankeennu insha allah ayaan idinka rajaynaynaa waa Madax Sare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland